maxay Soomaalidu ugu cadhoodeen Erdogan oo barnaamijaynu ku daah qaadi doono arrimo door ah oo 13 sannadood u dambeeyay Soomaalida iyo Turkida soo dhaxmaray. Waxay bulshada Soomaaliyeed isla dhaxmaraysay dhowrkan maalmood u dambeeyay khudbada u jeediyay Erdogan oo ay aad uga xumaadeen ama calooliyo lahayd, taasoo uu ka sheegay heshiiskiisa afkarad ee labada dal uu kala dhaxdhigay waa Itoobiya iyo Soomaaliya. Turkigu wuxuu u dabaaldegay guusha diblomaasiyadeed ee uu ka gaaray inay isafkartaan labada dal waa Soomaaliya iyo Itoobiya. Kadib muddo sanad ah khilaaf soo kala dhaxgalay labada dal oo dhinac kasta oo kale uu ku guul daraystay oo aan Turkiga ahayn. Sanadka khilaafka kadib maanta waftigii u horeeyay ee Soomaaliya ayaa tagay magaalada Addis Ababa oo maalinta ay tagayeen ay taariikhdu ku beegan tahay 24 December. waqtigan barnaamijkan duubaayana noqonaysa shalay toole, balse isafkaradka kadib gudaha Soomaaliya waxaa laga maqlayaa cod ka soo horjeeda siyaasadda Turkiga iyo sida uu wax u wado. Waa xaalad ka dhalatay hadal uu jeediyay Erdogan oo uu ku muujiyay isafkaradka kadib istaraatiijiyad ay u leedahay dalkiisa Itoobiya. Dhinaca kalena Soomaaliya waxa uu ku soo bandhigay Erdogan dal ay garab istaageen oo ay siiyeen taakulo bini'aadamnimo iyo maalgashi. Isbarbardhigga saamaynta Turkiga ee labada dal. Turkigu waxa uu yimid Soomaaliya xilli ay wajahaysay xaalad abaareed oo daran oo bini'aadantinimo. Waqtigii 2011 markii uu Erdogan oo ra'iisul wasaare waqtiga ahaa uu yimid Soomaaliya, waxa ay ku jirtay marxalad hubanti la'aan ah oo adag waqti dheerna qaadatay. taa waqtiga meesha ka saartay ama haba yaraatee aanay jirin adeegyadii dawladda iyo kaabayaasha bulshada intaba. Turkigu waxa uu bilaabay xilliga uu yimid dib u dhiska iyo qalabaynta goobaha asaasiga ah ee dawladda ay leedahay, dhismaha hay'adaha dawladda iyo xarumo kale oo muhiim ah. ilaa markii dambe Turkigu uu Soomaaliya ka furtay safaaradda ugu weyn ee uu dal caalamka ku leeyahay, taasoo uu ka hirgeliyay deegaanka xeebta badweynta Soomaaliya ee Muqdisho. markaasoo ay ku xigtay furitaanka saldhigga military ee Turkiga uu ku leeyahay dalkiisa ka baxsan oo ka ugu weyn ah, oo ay ku xigtay goobo caafimaad oo uu ka mid yahay isbitaalka weyn ee Erdogan loogu magac daray. isbitaalkaas oo ah ilaa waqtigan ka ugu adeega fiican ee dalka ku yaala. taasoo Erdogan oo taariikh ku sameeyay noqdayna hogaamiyihii ugu sarreeyay ee buuqasho ku yimaada waqtiga Soomaaliya. waqtiga oo goortan laga joogo aynu muuqaalkan duubayno muddo 13 sannadood Turkigu wuxuu Soomaaliya u rogay dal muhiim ah oo siyaasad iyo hab dawladeed dhisan. dhismihiisa iyo ka hawlgalka Turkiga uu ka hawlgalay Soomaaliya ee uu kabashada iyo gacan qabadka u sameeyay waxay Soomaaliya noqotay dal istaraatiijiyad diblomaasiyadeed u leh Turkiga. laakiin muddada ma gaarin 2 bilyan oo dollar mugga ganacsi ee u dhaxeeya labada dal. taasi waxa ay mudnaan siinaysaa Turkiga marka loo eego dhinaca Itoobiya. wuxuu Turkigu la leeyahay taariikh dheer Itoobiya mid diblomaasiyadeed iyo ganacsiba ah. sidoo kale wuxuu Turkigu warshadihiisa wax soo saarka ka hawlgeliyay gudaha Itoobiya sabab la xiriirta suuqa ballaaran ee Itoobiya ay leedahay oo 10 mar ay ka badan tahay faa'iidooyinka uu Turkigu ka heli karo gudaha Itoobiya marka loo eego Soomaaliya. tani waxa la xiriirta 100 milyan oo Itoobiyaan ah iyo tirada Soomaalida ee aan 50 milyan dhinayn. mugga ganacsi ee labada dal waa Turkiga iyo Itoobiya. sanadkii wuxuu Turkigu u dhoofiyaa Itoobiya ama geeyaa. Turkigu sanadkii waxa uu dhoofiyaa gudaha Itoobiya ganacsi qiimihiisu gaadhayo ilaa 500 oo bilyan oo dollarka Mareykanka ah. wax dhoofintanina waxa ay ka timaadaa birta, cunnada, daawooyinka, saliidda, hubka iyo wixii kale wax soo saara ee dalka Turkigu gudihiisa ka soo saaro dibaddana u dhoofiyo. wuxuu ku dhisan yahay xiriirka dalalka iyo danaha ay wadaagaan. dalalku waxay diiradda saaraan kaliya danahooga, taa ayay ka timaadaa difaaca amni iyo taageerada diblomaasiyadeed ee uu dal kale siinayo, taa oo ay ku jiraan masaaliixda guud ee dalkaasi. marka uu isbarbardhigu yimaado haddana waxa soo hormaraysa marka danuhu xagga ay ku badan yihiin ama wax laga helayo. kolka miisaanka la saaro in ay Itoobiya u noqonayso Turkiga mid uu waqti kasta ka doorbidayo Soomaaliya oo xagga Itoobiya u janjeero sabab la xidhiidha danihiisa ganacsi iyo diblomaasiyadeed iyo masaaliixdiisa guud. Soomaaliya waa dal eber ah waqtigan marka loo eego dhinaca Itoobiya, danahana lagu miisaamo Turkiga uu ka leeyahay labada dal sabab la xidhiidha burburka iyo soo kabasho la'aanta ay marba marka ka dambaysa gudka ku sii dhacayso ee ay jahawareerka iyo qalalaasaha ku dhex sugan tahay
iyo daciifnimada dawladeed oo ay weheliso siyaasadda arrimaha gudaha ee amni la'aanta ah oo aan wakhtigan saamaxayna ma suuro gelinayn maalgashi dhaqaale oo ballaadhan iyo fikirka in laga faa'iidaysta ah maalgashi loo huro. tan kale ee aan wax waliba ka suuro gelayn xuduud lahaynina waxa weeyaan in ay Soomaaliya faragelin ba'an ku hayaan wadamada geeska Afrika iyo reer galbeedka oo uu Mareykanku u horeeyaaba oo dagaal wakaaladeed uu ka socdo gudaheega taa oo meesha ka saaraysa in la isku halayn karo ama heerka daacadnimada ama madax bannaanida dawladeed ee Soomaalidu ay wakhtigan haysato oo hubanti la'aan ku sugan. dhinac kasta oo laga eego iyo si kasta oo loo falanqeeyana lama arki karo 40kii sannadood ee u dambeeyay Soomaaliya madax bannaanid dal leh. dib waxaa loo baahiyay wakhti kala duwan taariikh la xidhiidha Turkiga oo Soomaaliya ka dhan ah oo ay ku jirtay markii Soomaaliya ay la dagaalamaysay Itoobiya. isla taariikhdu waxay noo xaqiijinaysaa Turkiga iyo dal kasta oo kale inuu ka tegi doono Soomaaliya sabab la xidhiidha xaqiiqada ay qarinayaan Soomaalidu oo ku saabsan qiimahooga. dhibaatada kale ee la xidhiidha waxa weeye in aanay Soomaaliya lahayn hab diblomaasiyadeed oo daafuran oo ay ku soo bandhigi karto ciyaarteeda siyaasadeed iyo teeda gobol intaba oo ay gorgortan siyaasadeed iyo awoodo kale oo kala duwanba ay ku geli karto. isla goobtani waa halka lagu ogaado ama lagu soo bandhigo isbarbardhigga labada dal adiga oo ku tirtansiinaya danahaaga hadba ka dhinaciisa oo miisaanku u badan doono. mowqifka siyaasadeed istaraatiijiyadeed ee uu dal gorgortan ku geli karo maangal ah ee uu dhinac kale ku qancin karo in uu kula joogo ama ay danaha sii wadaagi karaan